maanta waxa aynu halkan isugu nimi waxa weeyaan ujeedadu inaynu laysankii guddoonsiino dugsiyadii processkii laysanka cusboonaysiintiisa soo maray diyaarka waa inay ruqsaddii sanadlaha ay qaataan ujeedadu waa intaasay ku caddahay marka waxaan u mahad celinaa dhammaan dugsiyada privateka ee u hoggaansamay shuruucda iyo qawaaniinta uu jidaynaya xeer nidaamyaha dugsiyada gaarka iyo xeerka waxbarashada ee qaranka iyo siyaasadda waxbarashada ee qaranka intaba halkan maanta waxaynu ku guddoonsiin doonaa laysankii 13 dugsi oo soo maray shuruudihii looga baahnaa processkii soo maray cashuurihii oo runtii cashuurta ku waajibto aad u yar soo bixiyey oo runtii abaalmadin iyo mataqaanaa in lagu bogaadiyo labadaba mudan iskuullada halkan baynu ka yeedhin doonaa shahaadooyinkoodiina waa diyaar halkan bay ka qaadan doonaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dugsiyada kale ee iyaguna processka dhexda kaga jira ee maanta aan nasiib u yeelanin in xafladda tan ay ka soo qayb galaan oo la guddoonsiiyo ruqsaddii sanadlaha ahayd ee dugsiyada gaarka ah intaa ka bacdi waxaa kaloo aan jecelahay in halkan uga sheego dugsiyada gaarka ah in liisanka bixintiisu ay ku eg tahay 15 Sebtembar wasaaradda waxbarashada ay ugu tala gashay 15 August oo aynu dugsiyada furnay ilaa 15 Sebtembar in liisanka lagu qaato ciddii processka ku jirta way ku mahadsan yihiin cidda weli aan bilaabin waxa weeye halkan baan uga sheegaynaa ayaanay idinka gaadhin 15 Sebtembar 15 Sebtembar haddii ay gaadho waxa weeye waxa bilaabmaysa markaa in la isla xisaabtamo waxa weeye iskuul inta uu halkan yimid nidaamkii iyo waxbarashada iyo qawaaniintii iyo visionkii waxbarashadu lahayd adeecay oo wasaaradda kala qayb galay oo kala shaqeynaya iyo sinaan maayaan iskuul inta uu dhagaha laabtay sidii maharad raashin iibinaysa soo dhex fadhiistay oo diiday shuruucdii qawaaniinta inuu waafaqo waxa bilaabin doonta la xisaabtan actually waxa weeye waan mari doonaa iskuullada marka hore guddi baa maraysay ka tirsan waaxa dugsiyada gaarka oo fariinta gaarsiinayay fadlan qaata liisamada laakiin muddada haddii ay gaadho waxa bilaabmi doonaa in shuruucda la mariyo in mataqaanaaye iskuullada loo yeedho kuwa ka dhaga adeega in digniin la siiyo siduu processka uu dhigayo xeer nidaamyuhu kuwa intaa ku dhaqaaqi waayay in la taqsiiro ciddii intaa dhaaftana dee iskuul maaha ee waxa fiican markaa inuu badheedho oo wax kale ula baxo meheradiisa wasaaradda ruqsadda iyagana kala laaban doontaa waxa weeye la isku soo noqon maayo oo socon mayso weligeed in maalinba odayaal iyo inta halkan la keeno la yidhaahdo maantaan waddada ku soo noqonaynaaye jaanista mahlana siiyo jaanisku hadduu banaayay waxaan jeclay laga faa'iidaysto aad iyo aad baan idiin bogaadinaa dhammaantiin iskuullada bilaabay waxay ahayd aan qoladayadan waxbarashadu siduu amiin sheegay qoladayadan maaliyaddu inaan anagu shahaadada siino inaan anagu shahaadada siinaa bay ahayd waananu siinaynaa shahaadad baanu siinaynaa insha allahu tacaala taa ay bixiyeen toodii aanu bixinaynaa iskuullada kalena waxa aan ku dhiirinayaa oo aan ku boorinayaa inay nidaamka wasaaradda waxbarashada raacaan لأنه وحوين هدي أي برايفت يهين كبرايفت كما أها ده شروع ضدك أودجسن عشوري برايفت كما أها ريجوليشنسكي رولسكي أودجسنا وزارة وحبرشة برايفت كما أها they have to follow وين الراعان وإن الراعان رولسكي يا ريجوليشنسكي يا سيلبسكا لو عيماي اللي سيلبسكا بحية السيلبسكا قرن كلاجو قاطو إن قاطان ويان الراعان وريجوليشنسكي وزارة وحبرشة أي راعان أنا ودي قرادة كان مالية السلسلة ده مسكسي أنا أول يجيب عرور عيسطو أنا وحلاقي قانون مع العرور تيجي دوش هذيك يقفل. ujeedadana waxay tahay markaa in maanta halka lagu guddoonsiiyo ruqsaddii ay ku shaqeyn lahayn markaa dugsiyadu intii isdiiwaan gelisay dugsiyada gaarka inta kale aan isdiiwaan gelina waxaan jeclaan inay degdeg isku diiwaan geliyaan diiwaangelintuna kulli waxyaalo fara badan bay ka tari doontaa wada shaqeynta wasaaraddii ay wada leeyihiin dugsiyadu iyo dowladdaba guud ahaan waayo dee dowladda iyo dugsiyada gaarkii wada shaqeyn buuxdaa ka dhexaysa wada shaqeyntaa in lasii xoojiyaa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad runtii uga adkeynayaa dugsiyada gaarka waxaan u soconaa wax weyn tayada waxbarashada laga shaqeeyo wasaaradda waxbarashada sanadkan waxaa ay culayska saaraysaa ama halkudhig u ah sidaad marar fara badan maqasheen in tayada waxbarashada markaa heerka ugu sarreysa la gaadhsiiyo ardayga markaa reer Somaliland waxaan u baahannahay in la tartamo ardayda wadamada jaarka iyo ardayda caalamka in la tartamo si taa loo gaadho waa in la dardargeliyo markaa tayadii waxbarashada shalay halkan waxaa lagu bilaabay markaa tababarkii
dugsiyada markaa dowladda oo macallimiinta maamulayaasha dugsiyada dowladda kaabaa tababar loo furay 20 cisho soconaya dugsiyada gaarkii hadday isdiiwaan geliyaanna waa in iyagana tababar baa markaa loo qaban doonaa maamulayaashooda si loo gaadhsiiyey markaa heerka la doonaya maamuluhu inuu gaadho ujeeddada u soconnaa waxa weyn iskuullada inuu hagaagaan runtii munaasibadan qiimaha badan ee shahaadooyinka lagu guddoonsiinayo dugsiyadii buuxiyey shuruucdii wasaaradda waxbarashadu ay u dhigtay dugsiyada gaarka loo leeyahay aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa dugsiyadan shahaadooyinka maanta la guddoonsiinayo siyaasadda waxbarashada qaranka waxaa ka mas-uula wasaaradda waxbarashada annagu gobol ahaan waxaanu fulinaynaa awaamirta ka soo baxda dhammaan wasaaradaha dowladda dugsiyada gaarka ah runtii waxaad moodaa waxoogaa inay isyar bideen inay madax bannaan yihiin oo la xisaabtankii wasaaraddu beryihii hore uu ku yaraa laakiin maanta wasaaradda waxaa jooga rag xeerarkii waxbarashada iyo xeer nidaamiyii wasaaradda ay u dhigtay dugsiyada gaarkaa doonaya inay ku hoggaamiyaan runtii waana qorshaha saxa ah ee loo baahan yahay dugsiyada gaarka loo leeyahayna waa inay u hoggaansamaan xeerarka waxbarashada iyo xeer nidaamiyaha wasaaraddu ay u dejisay taa marka la helo ayaa la helayaa dugsiyo wanaagsan oo tayadooda tacliimeed iyo dhinac kasta runtii halkii loo baahnaa gaadha annagu mar kasta waxaan u taagannahay inaanu dhinac taagno wasaaradda waxbarashada gobolkan Maroodi Jeex ee aanu wakiilka uga nahay annagoo istuwayaasheeda iyo kaashanayna awaamirta ka soo baxda wasaaradda ciddii u hoggaansami weyday waqtigaa loo qabtay isku diiwaan gelin weydana runtii iyaga istayacay kuwaasi inta isdiiwaan gelisayna aad iyo aad baan u hambaliyeynaynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa uu yahay shirkan qiimaha badan ee uu joogo guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex waxay ujeedadu tahay in iskuullada u hoggaansamay ee tixgeliyey sharciga waddanka ee waxbarashada private-ka ah ku saabsan inaanu dhiirigelino oo annaguna aanu si ay u aqoonsano iyaga siday iyaguna u aqoonsadeen in ilaahay hadduu ku roon yahay dee sharciga iyo loo dhigay waxbarashada iyo dowladdu ay u hoggaansamaan waxaanu bixin doonaa lisanadii dalbateen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaana sababta ay tahay aanu isugu kan yeernay in kuwa kalena tusaale u noqotaan oo sidaasi iyaguna ay ku soo hirtaan oo ay ogaadaan in madax bannaanidan ay sheegayaan aanay meesha jirin waddanka cid ka madax bannaani dowladda oo iyadu wixeeda gooni u wadataa ma jirto arday baa gacanta ku haysaan ubadkii waddanka gacanta ku haysaan private schoolsku iyo publicuba privateku markaa hadday u qaataan inay iyagu ka duwan yihiin kuwa kale macnaheedu ma waxa weeyaan ubadkaanu haynaana reer Somaliland maaha way ka duwan yihiin iyaguna dadka way ka duwan yihiin miya taasi ma soconayso aad iyo aad bay u mahadsantihiin had iyo jeer waxaa xusuusnaataan kelmaddan ama oraahdan dugsiyada privateku way madax bannaan yihiin halka qasku ka imanaya waa halkaa uma madax bannaana siday doonaan inay u socdaan waxay u madax bannaan yihiin laakiin qofkii maal gashanaya inuu maalkiisa geliyo isagu ayuu u madax bannaan yihiin waxay u madax bannaan yihiin macallimiinta inay iyagu qaataan oo ay ka qaadaan interviewga oo ay ilaahay hadduu ku roonya iyagu ay keensadaan iyay u madax bannaan yihiin weliba macallimiinta keenidooda qas badan baa ka taagan waxyaalo fara badan baa ka taagan in xitaa taasi la ilaaliyo oo xeerka siduu yahay lagu dhaqo iyay noqonaysaa marka la leeyahay madax bannaani laga hadlayo madax bannaanidu way ka baxsan tahay hawsha private schoolsku ay qabtaan ee ardayda iyo waddanka ay u qabtaan gedigeen public iyo private ubad reer Somaliland habaynu waxbaraynaa si isku mid ah aynu hawsha u wada wadnaana waa waajibna saaran